wararkii ugu waaweynaa soo dhacay taariikhduna waa 21 Juun. haddaba barnaamijku waxaanu ku bilaabaynaa shirkii wadaxaajoodka ee ka furmay Switzerland ee lagu dhexdhexaadinayay Mareykanka iyo Iran. xaalkiisu waa sidee hadda? shirkii waa lagu kala tegay kolay markii xoogaa la fadhiyay ilaa 80 daqiiqadood ayaa kooxdii Iraaniyiintu intay istaageen iska tageen. ilaa haddana waqti rasmi ah oo la isugu soo noqonayo lama sheegin. weli dhexdhexaadiyaashu way ku dhex jiraan. sababtu marka maxay tahay? sababtu waxay yidhaahdeen hadallada uu ku hadlay ninka la yiraahdo Trump waxaan aqbali karna ma. haddaba marka intaynan hadallada Trump iyo wixii laga qoray oo aad u xiiso badan u tagin marka hore wixii dhacay aan aragno. haddaba waxaa la soo sheegayaa wakaaladda wararka ee Tasniim ee Iran waxaa laga soo xiganayaa wafdiga Iran inuu isaga baxay wada hadalkii iyagoo ka cabanaya handadaado iyo hadallo hanjabaada oo uu jeediyay Trump. wakaaladda wararka ee Tasniim waxay sheegtay in kooxda wada hadallada Iran ay ka tageen goobtii wada hadalka ee la yiraahdo Borgen Shock, halkaasoo la sheegay in ay aad uga caroodeen hadallo hanjabaad ah oo uu jeediyay ninka la yiraahdo Trump. wafdigii Iran waa la iska kacay baxanade. maxaa dhacay? ninkan wuxuu ku hadlay Soomaalitaan marka waxyaabaha la yaab kale waxa kamid ah arinta Trump ma u galina. Trump warkiisa rabaa inaan marka hore idin sheego kadibna wixii laga yiri aan marka idin dhaho. ninka horta waxa uu ilowsanaa asaga iyo Iran inay wada hadal leeyihiin oo wafdigiisa iyo wafdiga Iran ay hadda wada hadal galeen oo Iran si dirqiya lagu soo waday. Pakistan wasiirkeeda arrimaha gudaha u dirtay la soo bariyay iyadoo ka caraysan Israa'iil waxay sameynayso shirkii la keenay. ninkii waxay leeyihiin dadka qaar waa garan weynay hadallada uu ku hadlay. qof macnaha hadalladaas qof wada hadalkaas dan kale ama wax inay ka soo baxaan raba oo haddana sidaa u hadlaya waa la yaabay. dadka qaar marka waxay yiraahdeen maanta waxay ahayd Axad, gaalada badankeedna waa istaatikeeyaan Axad. alaabtoodii ku dhuftaan 2 koob 3 koob arbuu cabay odaga u wareeray markii shaqada ka badatay yiraahdeen asaguna mar walba oo warbaahintu soo wacdo uu iska hadlaa hataa tikeysanaado ama yu taatikeysanaanin asaga u taalay kulee maxaa ku tiraadeen marka waxay yiraahdeen hadalkan fiiri hadalka uu ku hadlay iyo waxa meesha ka socda iyo maalmahan wuxuu rabay in wada hadal wax walba lagu dhameeyo uu Netanyahu ku haystay maxay tahay isaga ka darayeen. haddaba marka hadalkan la isku haystaan idin tuso. haddaba warbixin tan waxaa qortay telefishinka Al Jazeera wuxuu leeyahay Trump oo u waramayay Fox News. telefishinka la yiraahdo Fox News ayuu waraysi siiyay. wuxuu yiri xiritaanka marinka Hormuz waxay la macno tahay dhamaadka Iran ayay la macno tahay. marka Trump oo u waramayay Fox News isagoo ka jawaabayay ku adkaysiga madaxweynaha Iran ee ah in Iran aysan marnaba ka tanaasuli doonin kobcinteeda uraniumka. Trump wuxuu yiri waa inuu fiiro gaara u yeeshaa hadalladiisa haddii kale waxaan la wareegi doonaa inta kale ee dalka Iran oo dhan. haddaba waxa kale oo warkiisa laga qoray waxaan haystaa ayuu yiri fursado badan haddii Iraaniyiintu aysan samayn ballanqaadiyo halis ah miiska wada hadalka. ballanqaadiyo heshiis oo marka aysan la imaan miiska wada hadalka. haddaba heshiiska is-afgaradku waxa kaliya uu yahay kordhinta xabad joojinta ee maaha heshiiska kama dambaysta ah. Tehran waa inay si degdeg ah u joojisaa awlaadeeda Lubnaan inay dhibaato abuuraan. haddii aysan sidaas samayn waxaan mar kale si adag u weerari doonaa Iran. waxaan ku dhowanahay
inaan faylka xisbullah u dhiibno oo aan u gacan gelinno suuriya oo aan awood siiyo madaxweynaha suuriya axmed al-sharac. wuxuu sidoo kale sheegay Trump, waan ka niyad jabsanahay Israa'iil waxba ma qaban karaan iyagoo aan burburinin dhismayaal waaweyn oo dad degan yihiin. waxaan shalay la hadlay mas-uuliyiinta Iiraan, waxaan uga digay inay xiraan marinka Hormuz oo digniin baan u diray. haddii Iiraan ay xirto marinka Hormuz, gorgortanka Iiraaniyiintu ma awoodi doonaan inay ku laabtaan guryahooda. Xamaas hadda dhibaato badan kuma hayso Gaza, waana in diiradda la saaraa heshiiska Iiraan. haddii Iiraaniyiintu xiraan marinka Hormuz, dalkooda waa la burburin doonaa. haddii aanan heshiis la gaarin Iiraan, waxaan ku soo rogi doonaa khidmadaha gaadiidka marinka Hormuz. Ameerika waxay noqon kartaa ilaaliyaha marinka Hormuz oo waxay qaadan kartaa 20% saliidda halkaa maraysa. waxaa laga yaabaa inaan xakamayno marinka Hormuz haddii aan u baahanno. marka hadalkaas nin wada xaajood raba oo Iiraan inuu la hadlaya raba oo wafdi soo dirsaday oo Bakistaan soo wada dhahay Iiraan, nin dib markaa fayoowo waxaa soo socda hadalkaa inuu sheego ay tahay miya? wada hadalkii hadda looba bilowday. wada hadalka xataa haddii uu wax lagu kala adkaysto hadal hadho, laakiin wada hadalkii oo bilowday hadalkaa inuu jeediyo maxay idinla tahay idinka laftirkiinu? ilaa markii dambe dadkii falanqeeyayaasha oo la wareysanaya ay yidhaahdeen wax kale ma hayno ilaa odaga waxbaa ka qaldanay dheen. maanta waa axaday dheen, odaga waa taatikaysan dheen, waa istaatikay. marka sheekadaas halkaasay baraysaa. marka isla markii marka waxaa u jawaabay ninka la yidhaha Qaalibaaf. odagaas markuu hadlo odayaa loo hayaa. odagan gudoomiyaha baarlamaanka Iiraan ah, Qaalibaaf la yidhahdaa, ninka Switzerland joogo wafdiga Iiraan hogaaminaya waaye. waxaa la yidhahay ninkii Trump asaanuu leeyahay ka warrama. haddaba marka Qaalibaaf warkiisa haddaan idin tuso wuxuu leeyahay afhayeenka baarlamaanka Iiraan Maxamed Baaqir Qaalibaaf oo ka qayb qaadanaya wadahadallada tooska ah ayaa yidhi waxay u fiicnaan lahayd in Maraykanka uu ka taxadaro hadalladooda maadaama ciidamadeennu ay diyaar u yihiin inay si kale uga jawaabaan hadalladaas. Qaalibaaf wuxuu ku nuuxnuuxsaday in Iiraaniyiintu aysan fiiro gaara u yeelan hanjabaadda Maraykanka, isagoo raaciyay haddii ay wax ku ool tahay hanjabaadan oo uu ninka kani wax tari karo ma joogi lahayn xaaladda uu maanta caawimaadda u baahan yahay. wuxuu sii raaciyay inta ay Maraykanku hadlaan annaga ayaa ah kuwa wax ka qabanaya gudaha dhulka. isagoo iska hadluu leeyahay annaga dhulka wixii ah iyo ciidankeena ninkan saan u qaylina hadduu wax taraayo sidaas ma u qayliyeen u leeyahay. marka hadallo waxaa la isku tuuray aan caadi ahayn. haddaa isa soo taatikaysay annaguna oday kala oday looma waayaa la yidhi moogtay. soomaalidu waxay yidhahdaan oday looma waayo. odaygan marka gabgablaha 80 jirka ah mid kaloo sidiisoo kale ah oo ayaa markiiba u jawaabay. xaalku marka cirku galay, nimankii dhexdhexaadiyaasha ah hadda marka way isaga kala dabqaadayaan, war arrintaa la joojiyo, war sidee weeye. marka hawsha halkaasi hadda ku nusan tahay. ma la kala tegi doonaayo Iiraaniyiintu iska soo safri doonaan mise weli meesha lagu celin doonaan oo wada hadal kala la qaban doonaa? weli tafaasiisha lama hayo, inkastoo ay qadar sheegayso in rajo laga qabo in wada xaajoodkii dib loo bilaabo. marka arrinkaasu halkaasuu marayaan. dhanka kale ninkii Netanyahu wuu hadlay maalmahan culaysa saaran. wuxuu leeyahay annagu xabadda waa joojinaynaa laakiin ma ka baxayno marnaba dhul aan carab ka qabsan. dhul carab aan mar ka qabsanay maba ka baxayno. Trump marka aday ku taalaan xabad joojin ma ku soo heshiisaa? xabaddii waa joojinay
laakiin dhulkooda ma ka baxayn dhulkooda hadaada ka bixisay adi xabadda lagaaga joojinaa waa lagu soo weeraraa nagtaa lagaa saaraa adiguna waad weerari xabad joojinta aaw ma jirto haddaba ninka warkiisa markaa dhidituso isaguna goordhow ayuu hadlay Netanyahu wuxuu sheegay waxaanu baaqi ku sii ahaan doonaa goobaha amniga ayuu ugu magac daray ee aanu ka haysano Lubnaan, Suuriya iyo Gaza. Ra'iisul Wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu ayaa sheegay inay goobahaasu aanay ka bixi doonin ay halkaa ka joogaan. dhanka kale wuxuu wacad ku maray inaanu marnaba aqbali doonin inta uu xilka joogo in ay nuclear samaysato Iran. marka ninka isaguna xaalkaas warkaas ayuu soo daayay. sheekadu marka waa sheeko maartay saas la isaga daba wareeganay baatan niman wareersan adduunka qarribay aan haysta nimankaas waa wareeriyeen marna taraama la celcelinaa marna kala la celcelinaa markana la celinaa markan waxaanu ku soo qaadanaynaa war ayaa soo dhacay la leeyahay markab ayaa lagu weeraray xeebaha dalka Yemen. haddaba markaan aragno telefishinka Al-Arabiya wuxuu leeyahay hay-adda dhanka badda u qaabilsan Britain ayaa sheegtay inay soo gaareen cabashooyin ku saabsan inuu dhacay shil meel 50 mayl u jirta badda dalka Yemen meel 50 mayl u jirta ayaa waxa ka dhacay leeyahay shil. hay-adda waxay sheegtay in markaa ay heshay qayladaan markaasi muujinaysa in weerar uu ka dhacay halkaas. weerarka wuxuu ka dhacay deegaanka la yiraahdo koonfur bari dalka Yemen ee Ashxar la yiraahdo ayaa markaa uu ka dhacay weerarka. wararku waxay sheegayaan in la weeraray markab weyn oo kuwa shidaalka qaada ah waxaana weerar ku qaaday dooni yar oo ay la socdeen 5 qof oo hubaysan waxayna doonayeen inay xoog ku fuulaan markabka laakiin waxaa la sheegay inaanay u suura gelin oo markaa markabka uu markiiba kala wareegay taasoo culays ku noqotay doonidii ay wateen inay markabka ku soo dhawaato markii biyo badan uu ku sayriyay. waxaana la sheegay ugu dambeyntii markabka inuu tagay meel markaa aamin ah. ilaa hadda lama oga kooxda weerarka qaaday waxay ahaayeen ilaa hadda marka lama oga waa gelinkii dambe maanta ayaa weerarkan uu dhacaa la leeyahay halkaas ayuuna ka dhacay. haddaba waa arki doonaa wixii kale oo warara ee soo kordha barnaamijkaygii saddexaad maanta aan idiin soo gudbinayno waa naga intaa waan hubaa inaad ka hesheen barnaamijkaygii labaad iyo kii koobaad